gurmashada dhibaatada gaadiidka beesho geeshka yago gortay coolaad tahay gaashaan birlab oho geeshka yago gurmashada dhibaatada gaadiidka beesho geeshka yago gudaha iyo dibaddaba geesiyada ilaasho geeshka yago gardarrada cadaawaha kan ka gacan sarreeyo geeshka yago gudaha iyo dibaddaba geesiyada ilaasho geeshka yago dhammaan staafka tariska guud waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib farxad weyn ayay ii tahay saaka oo ah maalintii ugu dambeysay carruurtiina imaado inay ku soo beeganto qalinjebinta 68 sarkaal oo aan u bilownay mashruuc weyn oo aan ugu talagalnay in saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed uu tababar dalka gudihiisa. arrintaas waxay ahayd initiative ka yimid saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed annagana aan horseednay tijaabada noo soo baxdayna ay noqotay maanta in 68 sarkaal 3 bilood muddo 3 bilood la baray hogaaminta hurin koox hurin ilaa iyo urur oo dhammaan tabka dagaalka iyo taakulaynta dagaalka la ah. ujeeddada lagu qasabtayna waxay ahayd ciidanku maadaama dibudhis weyn ku jiro waxaan fiirinay nambarka saraakiisha aan helin waxbarashada aasaasiga ciidamada u ah ama kuliyadda asaasiga ciidamada soona dallacay siyaabo kala duwan ku dallacay soo dagaalamay meelid ku dallacay shaqo fiican soo mar hadday sidaas tahay waxaan go'aansanay in dalka gudihiisa tababar lagu siiyo. waxyaabihii la soo bandhigay inta baxdiga ugu socday ama researchka ugu socday waxay ahayd number aad u badan oo kun sii gaaraya oo saraakiil yaryara ayaa waxaan doonnay inaan adiga xagga ka soo wareeg waxaa inoo suura galay markaa 70 sarkaal in la xareeyo loo diyaariyo program 3 bilooda ujeeddadiisuna ay tahay inuu soo saaro hogaamiyeyaal hogaamin kara ciidan koox hurin ilaa urur. si wanaagsan ay ku dhammaatay. waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii iyo guddigii madaxii tababarka ee hawshaas waday iyo kuliyadda taliyaha kuliyadda wadan. arrintaas waxay ahayd arrin aad iyo aad u fiican, shaqo fiicanna laga qabtay. runtiina aan isdhihi karo tallaabo aad iyo aad u fiican ay ahayd oo ku saabsan xagga horumarinteeda. waxaan aaminsanahay tababarka inuu yahay asaas
إنه يهاي محورك وريجيا أما غادية وحقبة سراكيش سرقال والبس سرقال مكتب وبربرية هاي أن يكرف يعني هاي حاجة مقلدة حاجة شقوية في سنة هي حاجة أخلاقية يعني شحابة فكو حمد جينا يعني فعل معنات الجوات نوصل بحضي إلى المغطط بفعل القرآن الشغفي عنها كخبرنا ترس العيد المحور بدولة الصومالية يعملون كما كنت هنا أركتداس إن عيدك لتوبراء وعيه الضمير أما فكر أن أصوب بين عيدك ما كان في السوق دagaalku ku jiraa way iska adag tahay tababar rasmi ah oo wadayo laakiin fallaagabiliye kaaga ma aha inta aad saraakiisha ciidankaagu tababaran yahay ayay ku shaqo inaad cadowgaaga jebiso sidaas darteed mar allaala markaan xafiiska imaaday waxaan go'aansanay inaan wax badan ka qabanno xagga tababarka خاصة قوة تأهيلية إذا كان مقبول بيرمضوا كهذا إذا مضوا أي كيمين أنت مبرر بالعليا يا حكم الإيران جدوي كي أما فكر كي جوات ولا شيء أنت عماش تجوبي وحارب كلا إلى وقت يبغى غير كنا بدأ متوبرنا وبدأ قصة بينه أكاديميا عربيس سراكيش خاصة عن توبر تبدأ واحد sidoo kale kuwa soo socda kuwa ka soo baxa kulliyadaha dibadda in ayagana national character-kii iyo dalka siduu yahay iyo shuruucda ciidanka iyo wadaniyada dalka lagu qoro iyo in dufacaad kale dowlada saaxiibo aan nahay loo tababaraan oo aan la soo heshiinay oo aan la soo hadalnay ay ka mid tahay dowladda Turkiga ay ka mid tahay Suudaan ay ka mid tahay Ethiopia oo ay ka mid tahay Uganda in si campaign وقتها ترى بدن مرة عليه أو هل صار أقوى كل سرقال أو توبر أو هيستا تعليمات توبر يا الله أو شخصي وبياسن تاي وحيالي أن يجينا كم تاي معمول جينا بنقوله دبليمان دوران وشغل عسي سيوضو عيدك فرصة في جيسا أما يدها عيدك وشو والله لا مكان سيء أنا متوقع كأن سنة وعلى سنة هذه سكان كعسكري ومتوقعين المحبطة وكان أكثر دجال كهذا دجال شغال القبيلة وسكان توقع كم كان عنده وعرض إلى الدومر شغالي قابلين وعيالنا مدة قوانا هي تلس الجود عن خواني تلس الجود روتي وحكرا قومي رد وراء وادي رفيعا شرف له بزيارة صور مضان مرة الله رضاك يعني من قرآن اسكالات بصرناي شغولي وحيامها أنفريسينا وحكم لها إلى أنفريسينا وقت الشغال الشغال الأيد نصعوكم 5 إلى 4 وعم بقول يسنى إنه قامدي قابلنا صويا لنا تضري توم هاي مكان مالي سدح توم كأني وإن توم برا در الغيرة وصوتي النجم في عنا وهاي الحجاميان كصوت القامدة وضياش اللي هو الجوجان فارنا وضياش وقتنا الجفا إلهي تبدو ضيع قومنا لكن الهجامة أي نقطة الهجامة إنتجريتد كفرد أضياشا إلى فلسطين الغيرة سيئة وهم يتعطان بالنسبة لهم وعن أول إني سرعين عشان أي تشبيه كعيدة العيدة بتشبيه كيسي وشرع عيدك قد قمرنا عامر جربي لا فريساني لا رشرني سلوه فريسي تشبيه كعيدك يحبقك عيدك كله مهلك وأنا من سنة هذه تشبيه كعيدك وقرصه عيدة لماذا يسوى مقطه إن وحبضا كالجر كأي لأخك عيدك ومسكب ذلك
waxyaabaha soo kordhin waxaa ka mid a shirki khamiislaha iyo korneed oo runtii ka yimid guddiga kubarada ay soo jeediyeen dhaqan galayna in deegaanka xamar la kormeero isbuuca koowaad markuu dhasho maalmihiisa ugu dambeeya la kormeero khamiistina laga wada hadlo wixii qabsoomay wixii wanaagsan iyo wixii aan wanaagsanayn si shaqo rutiina socota ay u noqoto shirka khamiislahana waa shir taariikh leh oo ciidankeena sharafta badnaa ee diri jiray berisamaadkii dhaqan u ahayd shirka ofishaale la isugu imaan jiray khamiista lana wada hadli jiray aayaha ciidankana loogu wada hadli jiray waxaa sidoo kale aan isleeyahay waxbaa laga qabtay in hogaamadii job descriptionkoodii iyo waajibaadkoodii ay ku shaqeynayeen la hormariyey lagana shaqeeyey runtiina hoggaan walba shaqada uu qabto iyo waajibkiisa u yaqaana maanta sidaas si lamid ahna lagu koontaroolo oo la hormariyey mechanism lagu ilaaliyo ama lagula socdo waxqabarka hoggaamada intaas waxaan isleeyahay iyo in ka badanba muddadii gaabeed oo aynu noo qabsoomeen wax allaala wixii qabsoomay oo meeshaan ka qabsoomayna qof keligiis ma qaba waa nalala qabtay hoggaamada garab ay nagu siiyeen staafka ka shaqaynayay dariska guud garab ay nagu siiyeen guddiyada garab ay nagu siiyeen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna garab uu nagu siiyey shaqadaasna waxaan isleeyahay waxay ahayd shaqo saldhig ay u ahayd guud fara badan ee ka timi dadka marka intaas ka gudbo waxaan rabaa inaan dad u istaago waxyaabihii wanaagsanaa ee aan ku taagaynay in ciidanka uu gasho mar walba waxaan naga muuqan in ciidankan fikirka lagu dhisayo iyo falsafada ku shaqaynayo uu lahaada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxaa yeelay ciidankan maaha ciidan shalay bilaabmay dalkanna maaha dal shalay bilaabmay waa dal 60 sano jirsaday awood lahaa state ahaa dhammaan maraakicdiisa iyo wuu dalka waa run laakiin haykalki ciidanimo wuu nagu dhex jiraa oo dadkiisu maalinta ciidankan la askumay taagnaabaa jooga in ayaga laga faa'iidaysto oo cilmiga laga qaato in ayaga ay diyaariyaan kiilkii bedeli taasna waxay ahayd hidaha ama visionka dariska guud aan ku maamulinay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta in odayaashii dumarada ahaa ayagoo ugu faraxsan lala shaqeeyey isdhexgal fiicanna la sameeyey saraakiisha cusub dhalinyarada ah inay fadhiyaan meesha kuna qanacsanaayeen sida ay u shaqeeyeen waxaan rajaynahay inaan wada tuurin waxaan rajaynahay in meeshooda joogaan laga faa'iidaysto ciidanka wadajir wuxuu ku dhismaa ciidanka wuxuu ku dhismaa khibrad iyo tacliim buu ku dhismaa tacliintana inay socoto khibraddana laga qaato odayaasha daliilna waxaa kugu ammaanta 70-ka sarkaal ee soo baxday dadka tababaray ayagay ahay dardaarankayga markaa waxaan kusoo koobayaa in la wada shaqeeyo ciidankan 30 sano banaanka uu ka maqnaa hawada maanta waa fiicannahay alxamdulilah daris guud aan leenahay madaxaan leenahay wasaaradaan leenahay madax baynu leenahay waxaan u baahannahay meel wax laga bilaabo fiican aan joognaa inaan hor usii soconno ciidanka howlgallada ku jiraan aan u kaalno meel walba oo howlgal dalka uu ka socdo dadkii taageeri lahaa waxaa howlgalka u baahan yahay fuudeen lahaa waa hoggaamada waxaa la rabaa inay focuskooda iyo aragtidooda ku jeediyaan howlgallada dalka ka socda taliyahana ay ka taageeraan capacity-ga ugu baahan yahay hadday dad ahaan lahayd hadday resource kale ahaan lahayd hadday supply ahaan lahayd hadday hub ahaan lahayd inay ayaga iyo hadday qorshe ahaan lahayd taliyuhu waa hal qof dadka inay taageeraan la rabo waa headquarter kooda dariska guud dariska guud marka waxaan u dardaarmayaa in si furan ay taliyaha xoogga u garabsiiyaan
سيان دمانت النور الرجال طلب المطلب لأنه أنا إنه وحنا نجوجا اليوروبيان يونيون تريننج تيم نمتها ومريال ويوم كسرة نرجع أنت بدن وأنا من كباسة بيلدينغ هو شو هيدا إلى يمتلك صدايا وقابل مع فريا إلى يومك عشوا الدوكيمنت هو بعندي وهرمانيته وكان كذا يصير بولس وصل هاي يصير بلان وصل هنا كفاية يستي ويسكين ماذا هم كانوا يمارا بس كانوا معظم هنا يسكت إنه جام والبا ده تقول لي ما سي يشتغلوا وصل معايا السكين في كباسة ويايان أيها الأخوان يسوع جديد أيها الأخوان يستو أنتي وعلى أنا ما أبغى أروح اليوم مدحونا الجمهورية الصومال الجمهورية رئيس وزراء وإيجاد إلى الاستجابة سكان صومالية وسكان صومالية كاملة أيها إيجاد إلى حكامية أمامي كلا بطل مدعين الحكومة الصومالية مدة قابل أي السياق وهم هذريها وعنا وجينا إن أي مصاب كعابان بوس يعني تبي لنا عليه رفيع ومعنا له ومتي شكرا يواجهك قرر لما ينصارن الدفاع عن الكامة ليش هو هذا الجو كسيك حاجة جاسية في الدلاء إليه بدأ أكثر كمان مرات أيها نجا عرفت فضل أيها نجا مقال فضل أيها موضوع نحن بدل مصالح هذا أيها كذا فكحوم بدين من هاي كلام سكان صوماليات وشافله تقدر له طبعا كسارة مرحلة تدخل وجوه اسمها كذا أنت أصلا ما ترى كسر جبليو باللعبنا لحد الشهادويك دفعتي كولات إعادة جالبني قال كان دحلي ساعة طوبرني وقصة دحلي وضع